wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Somaliland Maxamuud Warsamo Jaamac oo maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi u soo magacaabay xilkani ayaa maanta degmada Ceelifina gobolka Sanaag si weyn lagu soo dhaweeyay waxaana soo dhaweyntan heerkeedu sareeyo u sameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan waayeel waxgarad dhalinyaro haween iyagoo dhammaantood ruuxaya calimo qoyan ugu horreyn waxa halkaasi hadallo isugu jira duco iyo dardaaran uga soo jeediyay wasiirka bulshadii sida weyn u soo dhaweysay waayeel waxgarad dhalinyaro xildhibaano maanta waxa farxad weyn oo ah hadaan nahay reer Ceelifweyn inaan soo dhaweyno wasiir Maxamuud Warsamo Jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaan aad ugu faraxsanahay hadaan nahay reer Ceelifweyn aan soo dhaweynay waan salaamayaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud Maxamuud Warsamo Jaamac marka ugu horeysa waxaan leeyahay madaxweynahana wuu uga mahad celinayaa magacaabistiisa بسم الله تعالى محمود وحنا إلهي وقبرية حلك إلهي ودي حلك ما أنت الله مقعابي إنه النقضان شرعك كو أضاقو شرعك إلهية آخرة دي سإلى شذا الدنيا دي سنة إلى شذا لحلنا أمدي سوقتك محمود إن شاء الله وحنا لنا هاي واحد هاي مسؤول قرن إن قرن كأردن قارهان قبلك قارهان دقموين كيسة وحنا إن شاء الله تعالى عاد بنكوش الله هاي ندنا يرى رنتي فعالة بعتهذا هر الله أركي وحقبت كيسة إياه في الفرعونان تيسة. واحد نقول سودويننا وصير كمجعبان محمود ورسمة جامع عاديات بنقول سودويننا دقمة عيرفين نقول سودويننا مدحويننا ونوجابل علينا إن شاء الله وحنقول لنا هواض بارتي نكاد اللي يرضى إكسبيريان كهرو سوشيغي يا قبل كوصو مجعوضي والله أنا تعلم وصير بروحه إن أقول واخذه haddana aad baanu kaaga mahad celinayna wasiir marka hore waa ku soo dhaweynayna marka labaadna waa ku hambalyeynayna marka saddexaad waxaanu farxad iyo reereyn oo xilka lagu magacaabay marka afraadna waanu ku ducaynaynaa xilka ku asturo ku soo dhaweynayna wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Warsamo Jaamac oo ahaa mas'uul hore oo xukuumadii hore ka soo shaqeeyay waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa insha Allah inuu xilkan iyo xilka sareeyaba u sii magacaabo ku soo dhaweynaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guryeynta Maxamuud Warsamo Jaamac waxaanu leenahay Maxamuud Warsamo Jaamac wasiir soo dhawow ku soo dhawow degmada Ceelifweyn dhamaanteed ilaa maanta waynu ku taagnayd way ku sugayeen waayo wasiir si gaar ah loo xisaynayo oo horena loo soo arkay ayaa tahay gabagabadina wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Somaliland Maxamuud Warsamo Jaamac ayaa halkaas uga mahad celiyay sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen dadka deegaankani Alhamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad leh inagoo nabad qabno caafimaad qabno inaynu maanta isugu nimaadno degmada Ceelifweyn runtii degmada Ceelifweyn waa degmo fac weyn waa degmooyinka halbowlaha waa gobolka Sanaag salaadiinta iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dhalinyarada iyo dhammaan acyaantii bulshada Ceelifweyn halkan joogta dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa sida diirana noogu soo dhaweyseen degmada Ceelifweyn aniguna nin reer Ceelifweyn baan ahay Ceelifweyn in loo tilmaamayo la kala tustusayo meeyihi aad baan u kala garanayaa Ceelifweyn Somalilandna wax weyn bay u tahay gobolka Sanaagna wax weyn bay u tahay waxaan idin cadeynaya oo idin sheegaya sida Ceelifweyn gudaheeda u joogtaan ee ugu nooshiin aniguna qalbigaan idin kala joogaa waan idin la shaqeynaya fariintiinaan qaadaya wixii allaale wixii Ceelifweyn ay tabaysay ee doonayso ee awoodeena iyo ta dawladda iyo ta dhexdeena aynu iskaashanaynana waynu u tashanaynaa mid baynu ka wada noqonaynaa